waxaan ku soo gabagabeyneynaa fadhigeennan baaq ama bayaan culummadu ay ka soo saareen mu'tamarkii 15aad culummadii ka soo qayb gashay ayaa soo saaray baaqaas iyo bayaankaas waxaan ku soo dhaweynayaa oo akhrinayaa fadiilatu sheekh Dr. Cabdifataax Shimbirow falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانك كورن علميات كيشاني طبنات جالية الصوماليات كونفور أفريكا waxaa caawa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey kulan cilmiyeedkii 15aad ee jaaliyadda Soomaaliyeed Koonfur Afrika uu soo qabanqaabiyey golaha dacwada albayaan. Kulankan ayaa ka bilowday magaalada Johannesburg 26 Jumaad al-Aakhir 1446 Hijriya, taasoo ku beegan 27 bisha 12aad 2024. waxaana si habsami leh looga fuliyey inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Afrika. kulan cilmiyeedkan 15aad waxaa ka soo qayb galay culimadii ugu badnayd intii uu socday kulankan. muddadaas 12 maalmood ah waxaa ka faa'iideystay jaaliyadan ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed iyo muslimiinta kaleba. muddadaasi si aan kala go' lahayn waxay culimada bulshada ula wadaagtay duruus ku qotanta halkudhigga kulanka oo ahaa isu kaashada wanaagga iyo alla ka baqa wa tacaawanu cala albirri wattaqwa, iyaga oo si qoto dheer uga hadlay alla ka cabsiga, midnimada iyo iskaashiga. mahadcelin. culimadu waxay u mahadcelinayaan ugu horreyn Allah subxaanahu wa tacaala. waxay sidoo kale u mahadcelinayaan dowladda Koonfur Afrika oo soo dhaweysay jaaliyadda Soomaaliyeed una suura gelisay xurriyadda diinta, ganacsiga, waxbarashada iyo ku noolaanshaha dalka, iyo weliba qabashada kulan cilmiyeedkan 15 jirsaday. 2. golaha albayaan. waxay culimada uga mahadcelinayaan golaha albayaan dadaalkiisa ku aadan wax u qabashada bulshada iyo in laga tago raad wanaagsan oo ummadda anfaca diin iyo adduunba. 3. jaaliyadda Soomaaliyeed iyo bulshada reer South Africa sidoo kale waxay culimada u mahadcelinayaan bulshadii soo dhaweysay, guud ahaan martigelisay kana faa'iideysatay duruustii ay bixinayeen muddadii kulan cilmiyeedku uu socday. baaq. guud ahaan culimadii kulanka isugu timid waxay soo saareen baaqan soo socda. alla ka cabsiga iyo ku dhaqanka shariicada islaamka. waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed alla ka cabsi iyo ku dhaqanka shariicada islaamka, qof, qoys iyo maamulba, iyo in laga fogaado khilaafyada wata gacanka hadalka iyo diinta iyo daadinta dhiigga muslimka ee xurmada leh. midnimada iyo nabadda. waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed heer kasta oo ay yihiin, ilaalinta midnimada ummadda, xooggana saaraan nabadda iyo ka hortagga fidnada iyo kala qaybinta dadka iyo dalka. deminta colaadaha. waxaan ugu baaqaynaa dadka taladu ka go'do ama la maqlo sida culimada, dhaqanka, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada inay isu taagaan deminta dhammaan goobaha colaaduhu ka aloosan yihiin. waxaan xasuusinaynaa in aan dhiig muslim lagu xaqiijin karin guul. waxaana markhaati ka ah arrintaasi taariikhdiina soo martay mid dhow iyo mid fogba. kaalinta jaaliyadaha dibadda. waxaan ugu baaqaynaa jaaliyadaha dibaddu in maalkooda iyo saameyntooda u adeegsadaan deminta colaadaha, sidoo kale ay u adeegsadaan horumarinta dalka iyo adkeynta iskaashiga, isla markaana ay ka fogaadaan sii hurinta sharka iyo fitanta, si aanay u qoomamayn maalin aanay qoomamo wax tarin.
warbaahinta iyo baraha bulshada. Warbaahinta iyo dadka adeegsada baraha bulshada waxaan xasuusinaynaa in ay Allah weyn uga baqaan faafinta xumaanta nooc kasta oo ay tahay iyo ka qayb qaadashada colaadaha si ay uga badbaadaan carada Alle iyo cadaabkiisa aakhiro. ugu dambayn u ducaynta muslimiinta guud ahaan iyo kuwa dhiban. ugu dambayn waxaan Allah uga baryaynaa in uu culayska ka qaado dhammaan muslimiinta meel walbo ay joogaan, gaar ahaan walaalaheena reer Gaza oo uu ku socdo gumaad isirsifayn ah. mahadsanidin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.